هاي نيني ناقص قبو halka kalena wuxuu iska ahaa wiil dhalinyaro ah oo aanan wax kala wadanin inta kadib baskii waa u dhaqaaqay markii wax yar sii socday ayaa mar kale waxa uu istaagay meel kale albaabkii ayaa la furay dadna waxa soo kortay islaam weyn oo daa baskii sidii ay ugu dhex socotana waxay tagtay kursigii ugu dambeeyay kursiga ka horeeyo meeshii ayayna fadhiisatay oo hal saf oo kaliya ayaa ka dambeeyay hadaba mar kale baskii waa uu soo dhaqaaqay wadadiisii ayuuna sii qaaday jawigana wuxuu iska ahaa mid qabow oo dabeel yar ay socoto dadka baska saaran gabi ahaantood waa ay aamusan yihiin jawi degan ay iskaga jiraan qof kastana wuxuu isha ku hayaa halkii uu ku degan lahaa si ay guryahooda ugu noqdaan hadaba baskii markii uu sii socday muddo kooban u yar kadib ayaa si lama filaan ah darawalkii gaariga kaxeenayay hal mar ayuu bareegii ku dhagay ilaa dadkii gaariga saarnaa madaxoodii ay ku garaacdeen kuraasta ka horeysay sababta uu darawalka bareega sida xun ugu qabtayna waxay ahayd wuxuu arkay laba nin oo dhex taagan wadada bartamaheeda markii hore meel fog ayuu ka yara arkay markaad fiiriso dadkaanina waa dad qariib ah yacni sida ay baska gacanta ugu taagayaan ay u istaajinayaan darawalkana wax uu la yaabay sida ay u dhaqmayaan iyo qaabka ay gaariga u dalbadeen in loo istaajiyo kaaga sii daran basaska halkaasi ma istaagaan ilaa meel aanan ahayn station yacni stationada baska ay istaagaan wadada dhexdeeda maba istaagaanba dadkaanina waxayba iska taagan yihiin wadadii bartamaheeda ayay doonayaan in gaariga loo istaajiyo haddaba sida caadiga ah dadkii baska saarnaa waxay ku dhaheen darawalka nin yahow nimankani waxba ha u istaajinin baska eena inaga dhaqaaji nimankani waxay yihiin mana qaano wadada bartamaheeda taagan waliba sidaan u eg sidaan baska u istaajinayo daniyo nimankani waxba ha inoo istaajinina inaga dhaqaaji laakiin lama filaan darawalkii baskii intuu istaajiyay ayuuna albaabkii ka furay war maxaa ku watay markiina waxay arkeen wax la yaab iyo argagax leh horta nimankani intaysan baska soo korin darawalkii ayaaba ka argagaxay oo asaga kaliya sababtoo arkayo dadkii wali maysan arkin oo gudaha maysan soo gelin afka ayuu kala taagayaa darawalkii la yaab iyo argagax dartiid dadkiina darawalkii ay eegayaan oo waxay isleeyihiin maxaa ku dhacay labadii nin markii ay baska soo koreen ayay dadkii ogaadeen sababta uu ninkani darawalka la cabsanayo waxay ahaayeen laba nin waji laga cabsada leh waxayna xiidan yihiin wax u eg dharkii dhaqanka Shiinaha ee waagii hore la isticmaali jiray xitaa hadda ma aha yacni xilliga qisada ay dhacayso waa 1995 ka hor ayaa la isticmaali jiray dharka sidoo kale nimankani waxay ahaayeen niman aad iyo aad u dhaadheer tan kale oo la yaab kale waxay ahayd nimankani markii hore waxa u maleeynay laba nin oo kaliya laakiin xaqiiqadu waxay ahayd markii ay gaariga si fiican u soo koreen waxayba ahaayeen saddex